xilliga la gaaro doorashada Soomaaliya caadooyinka aan laga guurin waxa ka mid ah boobka hantida dawladda gaar ahaan dhulalka danta guud deymaha laga qaato shirkadaha ganacsiga iyo shakhsiyaadka gaarka ah ee lagu qoro qaan dawladda lagu leeyahay iyo ku tagrifalka dhinaca xilalka iyo dalacsiinta dhammaan howlahan waxay ku dhamaadaan dan shakhsi ah oo badi u taagan hogaamiye raba inuu xafiiska ku soo laabto iyo shakhsiyaad u tababaran inay lacag ka sameeyaan kala wareegga xukunka dalka madaxweyne Farmaajo ayaa xala soo saaray qoraal uu ku diidan yahay dhulboobka maalmahan sida xuliga uga socda magaalada Muqdisho wuxuu Farmaajo adkeeyay qoraal uu 3 sano ka hor soo saaray oo arrimaha dhulka la xiriiray haddaba maxaa xalay ku soo beegay hadalka madaxweynaha maalmahan waxaa suuqyada dhulalka ee magaalada Muqdisho lagu kala iibsanayay ilaa 3 dhul oo dan guud ah mid ka mid ah waa midka uu Farmaajo ku xusay qoraalkiisii xalay ee dhulka asluubta dhul ay qayb ahaan leedahay asluubtu oo dawladda kacaanka ugu tala gashay in asluubta lagu ballaariyo dhul ku fidsan dhinaca warshada daawada iyo dhul kale oo u dhow ayaa maalmahan waxaa la sheegay inuu boob xoogan ka socday qaar ka mid ah dalaaliinta dhulalka ee magaalada Muqdisho aan la xiriirna waxay sheegeen in ilaa 1600 oo boos inay meeshaasi ku jirto oo la beecinayay lana qaybsaday inta badan siyaasiyiin hore xildhibaano xubno sare oo ka tirsan ciidanka asluubta guddoonka gobolka Banaadir iyo saraakiil hubaysan ayaa la sheegay inay qaybsadeen dhulka saraakiil sarsare oo ka tirsan filla Soomaaliya ayaa sidoo kale la sheegayaa inay ku lug leeyihiin arrinta dhulkan balse ay daaha gadaashiisa ku sugayeen lacagta dhulkan waxaa lagu daafuray $35,000 halkii boos waxaa kaloo jira dhul 600 oo boos lagu sheegay oo isla aagaasi ka dhow oo ka mid ah dhulka la boobayo kooxda gacanta kula jirta shaqadan dhulboobka ah waxaa la sheegay inay dhulka intiisa badan darbi ku oodeen si aan loo arag inta iibka iyo qaybintu ka dhamaanayso mid ka mid ah ragga madaxda ka ah bangiyada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu ka mid yahay dadka malaayiinta ku bixiyay boobka dhulkan shalay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaa jira warar sheegaya in arrimaha ra'iisul wasaaruhu u kuurgalayay inay ka mid tahay hadal haynta dhulkan oo maalmahan si weyn suuqa u soo gashay ila muhiim waxay sheegeen in Farmaajo Rooble isku si u dareensan yihiin qaybta ka dhalan karta dhulkan ayna isku raacsan yihiin in la joojiyo hawsha kooxda boobkan wada ayaan hadda la ogeyn waxa uu boobkooda ka bedeli doono hadalka madaxweynuhu Farmaajo guddi uma saarin joojinta dhulboobkan sidoo kale qofna xil ugama qaadin taas oo biyo qabow ku shubaysa fariintii uu soo saaray xalay dhulka ay kooxaani boobayaan waxaa la sheegay inuu xitaa ku jiro dhul ay dad shacab leeyihiin oo hore loo bixiyay Farmaajo waxa qura ee uu inta badan isku difaaco waa inuu ilaaliyay hantidii shacabka inkastoo dawladda uu Farmaajo madaxda ka yahay uusan musuqmaasuq ka marnayn oo hore uu baarlamaanku ugu eedeeyay in lacag 42 milyan laga waayay qisnada dawladda haddana dhinaca dhulboobka kama mid ahan waxyaabaha Farmaajo lagu eedeeyo waxaa lagu jiraa xilli doorasho kooxda dhulboobkan wada waxay maalmahan iibinayeen in kooxda madaxweyne Farmaajo wax ka og tahay hawsha socota oo lacagta loo adeegsan doono olole laakiin qoraalkii uu xalay Farmaajo soo saaray ayaa u muuqda mid uu isku badbaadiyay mucaaradka iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ee doorashada rajada kale si weyn ayay ula socdeen arrimaha dhulkan waxaase loo fahmay inay rabeen in markii hawshu dhammaato inay ka dhigaan mowduuc ay Farmaajo kula diriraan hadda waxa isha lagu wada hayaa waxa uu hadalka madaxweyne Farmaajo ka bedeli doono boobka ku socda dhulkii lagu fidin lahaa asluubta aaga u dhow ilaa warshadii daawada oo dhammaan ah dhul dawladeed maxay kula taadiga